tartanka ciyaar dhaqameedka ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Tartankan oo muddo ka socday hoolka weyn iyo xafladaha shirarka ee magaalada Jigjiga ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan ayaa waxa ku tartamaya dhalinyaro kala duwan oo gabdho iyo wiilal bay isugu jira kuwaas oo ka kala yimid 9 gobol ee uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida. waxaana tartankan soo qaban qaabiyay wasaaradda xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Soomaalida oo la kaashanaysa xafiisyada ay bahwadaagta yihiin. waxaana gabagabadii tartankan xaflad loogu talagalay abaalmarin dhalinyaradii kaalmaha koobaad iyo talabaad iyo saddexaadba ka gashay lagu qabtay kuliyadda tababarka macallimiinta ee magaalada Jigjiga. munaasabadan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan, heer gobol iyo waliba heer degmo isugu jira qaybaha bulshada ay ka kooban tahay iyo waliba marti sharaf kale oo aad u far. waxaana munaasabadan lagu abaalmarinayay dhalinyaradan goobjoog ka ahaa wasiirka madaxtooyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdicasiis Maxamed iyo wasiirka xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Gure Bisle. halkaana waxa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan kuwaas oo la siiyay maamulada gobolada dadaalka fiican ka sameeyay abaabulkan arrimaha dhaqanka. waxaana goboladan loo kala qaybiyay 2 gruubka koobaad waxa kaalinta koobaad ku guuleystay gobolka Goday, halka kaalinta labaad ay ka galeen gobolka Dhagaxbuur, kaalinta saddexaadna waxa galay gobolka Fiiq. gruubka labaad waxa kaalinta koobaad galay gobolka Shinile, kaalinta labaad gobolka Wardheer, kaalinta saddexaad waxa galay gobolka Qorraxay. waxaana munaasabadan abaalmarin aad u wanaagsan la siiyay kooxdii dhaqanka ee ka socotay gobolka Liban iyagoo soo bandhigay ciyaaro aad u xiiso galiyay bulshadii daawanaysay iyo dhammaan mas'uuliyiintii iyo gudiyadii. abaalmarinadan ayaa waxay isugu jireen dhiishash, muraayado, moobaylo iyo laabtoobo dhammaantood ay aad ugu farxeen dhalinyaradii ku tartamaysay arrimaha dhaqanka ee deegaanka Soomaalida. Axmed Kaabe, TV-ga caalamiga Universal, Jigjiga.